duhur wanaagsan waa khamiis 27 Juun 2019 waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta warka duhur. Warar dheeraada waxay ka soo baxayaan dagaal maleeshiyaad u dhaxeeya oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabduqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. dagaalkan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu saaka ka bilowday xaafado ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana u dhaxeeyay maleeshiyaad ka soo jeeda hal beel oo wada dega degmadaasi iyo tuuleyn hoostaga waa gobolka Shabeellaha Hoose. dadku sugan degmada Walaweyn ayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay weerareen Jackbounty Amber Control oo maleeshiyaad kale ay ku leeyihiin galbeedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasna uu ka socday dagaal geysay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo socday in ka badan hal saacadood. walaal dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay galbeedka Walaweyn Jackbounty yaalay ayaa maleeshiyaad hubeysan ay weerareen waxaana ku dhintay haweeney laba kale oo ay ku dhaawacmeen. hadda gudaha magaalada ayaa marar qaarkood la maqlayaa rasaas goosgoos oo ka socoto ayuu yiri qof ka mid ah dadka ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. xaalad degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose ayaa maanta waxa ay ka duwaneed maalmihii hore waxaana jirta cabsi saacadii la soo dhaafay laga dareemayay in dagaal halkaas ka dhacay taasoo sababtay in dagaal uu dhaco isla markaana maleeshiyada hubeysan ee weeraraan control galbeedka ay ku leeyihiin maleeshiyaad kale oo lacaga ay ku qaataan. dagaalkan saaka ka dhacay degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose ayaa daba socda dagaal la hor uga dhacay degmadaasi waxaana jirta in bilo ka hor ay tageen xildhibaano uu ka mid yahay Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kuwaas oo xiisada joojiyay balse maanta mar kale dib u bilowday. wariyaal ku sugan degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale waxa ay dhankooda ay sheegeen in xaaladda maanta ay tahay mid markaasi kacsan isla markaana qayb ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay ay haatan ku sugan yihiin xarumaha maamulka degmada Walaweyn sidoo kale ay jirto gurmad ee dalmada laba dhinac taas oo sababi karta in markii dagaalkaas uu dib uga qarxo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo horkacayo gudoomiyaha gobolkaas Ibraahim Cali Aadan Najax oo ka hadla dagaalkaas ayaa wuxuu maleeshiyaadku u baaqay inay dagaalkaas joojiyaan waxa uu sheegay in degmada Walaweyn ay caan ku ahayd dhanka nabadda ha yeeshee ay nasiib darro tahay in xilligan uu dagaal ka dhaco waxaana taasi ay keentay in markaasi odayaasha dhaqanka ee ku sugan degmada Walaweyn qaarkood haatan ay wadaan waawan ku aadan in markaasi laga hor istaago in maleeshiyaadkaas ay mar kale wada dagaalamaan. wararka gobolka Shabeellaha Hoose ayaan ku guda jirnay dowladda Mareykanka waxa ay faahfaahin ka bixisay duqeyn diyaaradeed oo ay ka geysatay deegaano ka tirsan gobolkaas. Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa. war-saxaafadeed ka soo baxay daliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 25 bishan Juun duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Kunyo Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen hal xubin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana sidoo kale ay baaritaan ku sameyn doonaan haddii dad rayid ah ay waxyeelo ka soo gaartay. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ilaa ay inta laga wiiqayo awoodda ururka Al-Shabaab. dhinaca kale war lagu qoray warbaahinta taageerta ururka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi uu Mareykanka la beegsaday isla markaana uu ku dilay nin ganacsade caan ka ahaa gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo magaciisa lagu sheegay Abu Cali Waartiyo. wararka aynu ka helayno magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaa hadda uu kulan u socdaa waxgaradka reer Cadaado iyo sidoo kale wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. kulan hordhac oo ah kulanka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo waxgaradka reer Cadaado ayaa waxa yeeshay waxgaradka dhexdooda iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud qoorqoor oo ka soo jeeda magaalada Cadaado. kulanka ugu horeeyay
waxaa si gaar ah u yeeshay waxgaradka oo ka arrinsanayay sida ay u wajahayaan wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanka ay la qaadan doonaan iyo waxaa go-aankooda uu noqon karo. waxaana xigay kulan u dhexeeyey iyaga iyo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya, taasi oo isna gogol xaar u ahaa xukuumadda uu ka tirsan yahay ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo waxgaradka kulankooda. kulanka hadda u socda waxgaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa looga arrinsanayaa sida hogaanka bulshada reer Cadaado loogu qancin lahaa in doorashada maamulka Galmudug ay ka dhacdo xarunta Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb. waxgaradka reer Cadaado ayaa hore u diiday in doorashada ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo sheegay in doorashada ay tahay inay ka dhacdo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa isaga oo wax go-aan ah la gaarin ururka ahlu sunna, laakiin uu sheegay in xukuumadda dooqeedu uu yahay in doorashada ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ka tagay magaaladaas isaga oo gaaray magaalada Cadaado. kulanka waxgaradka iyo ra-iisul wasaaraha marka uu soo idlaado kadib waxaa la qorsheynayaa in ra-iisul wasaaraha uu kulan la qaato xildhibaano iyo sidoo kale senataro uga sii horeeyay magaalada, kuwaas oo xalay kulan kooban oo is-arag ah yeeshay laakiin weli aan isla soo qaadin arrinka Galmudug. waxaa kasoo kordha wararka ku saabsan kulanka Cadaado hadda uga socda wafdiga ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo iyo hogaanka bulshada magaalada Cadaado. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena kale ama radiorisala.com ayaad ka daalacan doontaan. guddigii doorashooyinka maamulka Puntland ayaa maanta dhammaantood xilka iska casiray. cali xasan ayaa faahfaahinay. waxaa gabi ahaanba maanta ku dhawaaqay inay is wada casileen xubnaha guddigii doorashooyinka ku-meel gaarka ah ee Puntland kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Garowe. xubnaha guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ah ee Puntland ee maanta sida rasmiga ah ugu dhawaaqay is-casilaadooda ayaa maalmo ka hor waxay shir la yeesheen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, iyagoo u gudbiyey cabashada ay qabaan ee keenaysa inay is-casilaan. Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, gudoomiyihii guddigaasi oo ku hadlayay afka guddigaasi, ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaan guddigooda ay is-casileen si loo helo xubno cusub ee hore usii wada howlihii ay hayeen. sababaha ay isku casileen ayuu ku tilmaamay gudoomiyaha inay tahay duruufo si gaar ah ay iyaga u soo diristay, isla markaana qaarkood ay hore u saaciyeen go-aankooda is-casilaada. guddigu doorashooyinka ee ku-meel gaarka ee Tibet wuxuu ku wargelinayaa guud ahaan bulshaweynta reer Puntland iyo gaar ahaan ciddii ay wada shaqaynta kala dhaxaysay in ay baneeyeen xilkii iska casileen ay shaqadii ummadda u hayeen. duruufo u gaara awrood ayaa xubnihii kale ee guddigu si wada jira u go'aansaday in ay iska casilaan xilkaas si loo helo guddi cusub oo isla jaanqaada. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa inuu soo magacaabo 5 xubnood ee ugu horeysa guddiga cusub, halka 4 xubnood ee kale ay soo magacaabi doonaan golaha wakiilada maamulkaasi Puntland, waxaana dhammaantood xubnaha guddiga ay noqonayaan 9 xubnood. khasaare ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyay maleeshiyaad oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxaysaa dagaal khasaare geystay oo ka dhacay Saakay, tuulo hoos tagta degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Heys ee duleedka ka ah degmada Matabaan, waxaana dagaalkaas uu yahay mid ku soo laalaabtay isla markaana uu salka ku hayo isqabqabsi dhuleed oo u dhexeeya maleeshiyaadka dagaalamaya. dad ku sugan gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen in dagaalka uu dhacay dagaalkii Saake dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 3 ruux, halka qof kale uu ku dhaawacmay, kuwaas oo dhammaantood ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay. inkastoo xilligan uusan halkaasi ka socon wax dagaal ah, haddana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in deegaanka Heys oo ah halka lagu dagaalamay ay labada maleeshiyo weli ishor fadhiyaan, isla markaana markasta la filan karo dagaal. dhinaca kale, odayaasha dhaqanka
degmada Guraceel ayaa ka dalbaday maamulka Galmudug waa maamulada Galmudug iyo Hirshabelle inay colaada qaboojiyaan isla markaana ay door ku yeeshaan xakameynta dagaalka ku soo laabtay deegaankaasi oo dhowr jeer waxgaradka ah ay ku guuleysteen in la xalliyo laakiin haddana dib uu ka qarxay mas'uuliyiinta ayaa dalbanaya waxgaradka ayaa dalbanaya in go'aan meel mar ah ay maamulada ka gaaraan dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadkaasi maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay xukun xabsi ah ku riday gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani Maxamed Sadiiq Dhame gudoomiyaha ayaa muddo 50 maalmood ah ku xirnaa xabsiga magaalada Hargeysa waxaana lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyada oo maxkamadda magaalada Hargeysa ee gobolka magaalada Hargeysa ay ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ah xeer ilaalinta Somaliland ayaa racfaan ka qaadatay xukunka maxkamadda ay maanta ku riday waa qareenada isaga u doodaya ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda ay ku riday gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani Maxamed Sadiiq Dhame waxaana mas'uuliyiinta xisbiga wadani ay isku dayeen in damaanad ay ku sii daayaan mas'uulkaasi xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar ayaa warbaahinta Hargeysa kula hadlay isaga oo ka hadlay go'aanka xukunka loo cogsaday waxaan ku dhahday madaxweynaha la dhaliilo in madaxweynaha taariikhdiisa laga hadlo in khibradiisa laga hadlo in aqoontiisa laga hadlo haddii aanay doodaasi jir haynin oo qofka busteynto lagu soo madoobeeyay dabeetana loo oranayo hal idin xukumo taa dimuqraadiyad lama yiraahdo adduunka meelaha dimuqraadiyadu ka jirtay aragteen waa laga hadlaa madaxweynayaasha wixii la doonaa lagu yiraahdaa waa la caayaa kaftana laga sameeyaa madaxweyne Muuse haddaanu taa xamili karahaynin waxa wanaagsan inuu iska nasto oo arintaas ay badargareynayso ay maskaxdiisa galayso haddii xeer ilaalintu dadka taa ugu soo xidhayaan guulwadayn iyo iska dhaadhicin madaxweynahana oo anigu aan aaminsanahay inay taa tahay inay guulwadayn iyo iska dhaadhicin anigu ma qabo in madaxweynaha suurtagal ka tahay inuu yiraahdo qofkii wixii ga sheegaba soo qabta waayo hawlo ka